haddii uu ku soo waco qof sheeganaya magaca shirkadda ee uu ku weydiiyo lambarkaaga sirta waqtiga wicitaanada taleefanada gacanta fariintan ayaa in badan waxay ku soo noqnoqotaa dhagaheena qaarkeense kuma baraarugsana khatarta waxyeelada ee burcadda laga digayo bal maanta aan soo aragno waxa ka dhax socda gudaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhagaysigan waa habdhac iyo truufo aan hore loo arag qof kala dhacayana waa dhibane maama Faadumo Cusmaan Cabdi oo baayaha gaarka ah qabta iyadoo dhacaas loo marayo iska dhigid samafale iyo abka lacagaha waafiya shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana eedeysano waa kiiskan shabakadu uu hogaaminaya XW xooga Axmed Maxamed Cali Carab oo ku geeriyooday xabsiga Cabduqaadir Cali Xaaji Maxamuud iyo Dabla Niza Maxamed Cabduwali Maxamed Cabduqaadir Cali Xaaji Maxamuud waxa uu jilaaw ahaa inuu yahay samafale isagoona dhibana Faadumo u bandhigay inuu caawin doono badalkeedna ay u sheegto lambarka koontadeeda waa isku maane barnaamijkaas noocaas lagu shaqeystaan hayaa u dhahay barnaamij waafi oo lacag lagu qaadan karo aan hayaa event oo saas processka qofku waa la wacaa ana wax walba process walba ana diyaar ku sheegay waxaan ku sheegay tixraac saas miyaan dhahay hay waayaan inta dadka waceenaan marka mobile ana hay mobile badan ana hay mobiladaas laga wacaa lambaro ahayaan laga wacaa adi qofku aniga ay soo gudbinaysaa kadib wuxuu sheego ya kadib wuxuu sheego waxa aan ku sheego ama waxaan ku dhaho saas sameyn markaan ku dhaho sameynaysaa anna markaas mobile weyn maysan wax application lagu furaayo mobile niclaawti kadib maalintii habeenkii aadana maalinta ninkaan la soo qabanayo maxaa Cabdi la soo qabanayo lacagta lagu soo qabanayo habeenkii anaag iso dhiibay oo baraha bulshada Facebook ka arkay infaante markuu ka arkay oo iso lambarkan wuxuu yiraahday saas dheh lacag lagu hayaa lagu soo dir rabaa akoonka in la balaariyo la rabaa infaante kadib saas markaan dhahay naagtay way yiraahday lambarka processka u gudbiyay kadib asaan ku wareejiyay shirkadda xarunta ku weyn aku soo wacaysan dhahay hadalka laajida ku ay tacbiiri sama ku wareejiyay ku wareejiyay asaa lambar kale ka wacay lambarkan lambar ahayn oo kii aan ahayn asiga 6 mobile 7 mobile amal wad oo la niclaa fahmt oo asan ku wareejiyay adi mobile weyn oo watay oo touch mobile ku weyn oo lambarka ku aadistay naagta laba lambar aan leeyahay dhacday labada lambar oo kala sheegtay oo kala geliyay labada lambar waa lagu furo naagta bing halla bikooda ku soo dhaca koodka ku soo dhaco ya koodka ku soo dhaco 6 lambar soo sheeg hay waay lambar kale intaan koodka ku soo dhaco hore waxa la mobile kale laga soo cogooni asa dhaay mobile kale laga soo cogooni ma haystaa waa haystaa waay naagta dhees ay way halla kadib naagta lambarka ay soo sheegtay waa daan xasuusto furshan inuu yahay jecla event lambar kale laga wacay naagta mobilkeeda kale gacanta ku qabsatay koodkii soo sheegtay asay u sheegaysaa mobilka weynka oo touchkana agta u yaala hoostiisa u yaala oo asoo leeyahay kadib koodka 6 lambar markay soo sheegtay kadib waa lagu celiyay oo wuxuu dhahay 6 lambar kale aku soo dhaceyso ya 6 lambar kale ana ku qoraaye ana meel kugu save gareenayo soo sheeg oo soo sheegtadana meel ku qoray qorqodo ku qortay event kadib wuxuu dhahay xidig xaalada u dhahay saan processka aan ku tixraacan ku aan samee ku dhahay samee xidig 7 afargees dhahay u dhahay okay ku dhahay okay marka ku dhahay lambar 7 lambar 6 meelaas tago dhahay adi waad ku maasantahay ku soo bixin amal koodkii oo meesha marka lambar 7 tago meel kood la gelinayo oo koodka geli dhahay koodkii oo la geliyo 6 lambar oo day qoranayo waaya oo geli okay ku dhahay okay marka ku maasantahay ku soo bixin waaya ay adiga waa lagu furo amal waaya oo dhahay event kadib binkii oo ka qaaday lacagtana marka waxay ahayd 10,682 ahayd laakiin markay qoran tahay
muu fahansaneen saas aniga 1682 inay tahay markaan arkay markaan soo degaya xataa xaafidda soo degayna 1600 inay tahay oo umaleynayaan ani lacagta cadadkii soo gaartay oo asiga aan ka qaaday 1050 ilaa mobile oo ah lacagta qaybtii soo gaartay Soomaa lacagta 1xb ayaa cuntaas qirsana ayaa cun lacagta aku dheel dable niza maxamed cabdiweli maxamed kana tirsan ilaalada shacabka waxa uu si gaar ah isna u qaabilsanaa inuu soo bixiyo lacagaha iyagoo kaash ah baranjiyo uu lacaga kala baxay ugu dambeyn Hormuud Trebiano ayaa noqotay halka qorshooyinka shabakadan oo dhan ay ku fashilantay telefoon uu dhiibay lacag 600 Hormuud ka soo bixiyay oo xamrweyni meesha ba taagnaayeenba bis waa soo raacnay fiiro ma imaanay ninkii aqaanay telefoonka ay ka rabeen oo gidrib waa xirnaa telefoon ee macquul ay rabaan oo waayeen 14 nooc kale rabeen sidii aan marka dabka ka doonaynaa waa sidii ugu sii gudbo falkan ku galay marka meeshii tagayna ninkan meesha galeen application-kii iyo wixii waxa dhaaniyahay meeshan telefoonka ka rabno application-ka uma furno ragaan application-ka ma haystaan lacagta application ku jira waa alla soo sarif hay abooda ninka jugto horta si dhameystiro lacagta soo qaad waa xarunta ma ka qaadataan dhaatan waa xirantay xaruntii furan tag waa Trebianati كشيركا وحده لعقتها نوصو توراي محل لغا تورويا يا نكو سو تورا متقاناوا نكو واقاناوا محدا لعقتها ابلكيشن لغا سو تورويا ودا وافي مال وافي لغا سو تورويا وافي لغا سو وافي ميها رجي وعوا مرك واوعي نكو او ديب نكان وا فهم نقشده او جار احمد ninkaan numberkiisana ma helin aqoon habeenkaas ay ugu horeysay oo Axmed ku la socday meesha waxa dhaaniyo ninkii kaasheerka la hadlay ragaan meel ay joogan dukaanay hadda taagan yihiin ku geenaa nabad may laamaha amniga taas ku raacaysa waa ay ku dhufsadeen la ismana dhibinay baashaal ayaa loo baxay 3 xabo iPhone 14 Pro Max iyo mid Samsung ayaana la soo iibsaday waxay isku tahay oo aan meel ilaa hadda lagu sheegin $5763 ilaa 25 senti waa kuwaan mudane gudoomiye labada warqadood warqadii hore oo markii hore dhaqdhaqaaqa oo bangiga account-ka ay ku leedahay dhibana Faadumo iyaga oo kala sheegaya lacagta available-ka hadda ku jirta dhaqdhaqaaqi ay sameeyeen iyo tirada guud ee awal ku jirtay iyo inta aan ka maqan oo meel lagu sheegin waxna waa la hayaa oo kaashi ahaayeen waa kuwaan mudane gudoomiye $1220 ee xafiiska xiraalinta marag muujinaanta loogu soo wareejiyay iyaga oo markii ay qaateen kadib isku sawiraya oo adeegsanaya kuwan mobilada saddexda iPhone oo ay ku gateen kan iyo midkan saddexdan iPhone ay ku gateen oo 14 Pro Max hore kaga gateenba Awees Xaaji Cusmaan oo habeenkaas shiftiga kaashiyerka lahaa ayaa maxkamadda la wadaagay shakigiisa iyo wixii xigay ee talaabo uu qaaday maadaama uu mas'uul u yahay ilaalinta hantida shacabka gudoomiye anigoo 3 saac iyo 40 daqiiqo meelaha sayado waqtiga ay tahay waxa yimid ninka odaga marka lacag la baxay EVC Plus lacag uu soo dirsaday oo $250 ah lacagtii aan siiyay markii aan siiyay hadana lacag kale uu soo dirsaday mid labaadna sidoo kale waa siiyay markasta aan lacag siiyana dib u baxayo telefoon uu calaamad ku dhahay lacagtii waa ka saaray ii soo dir sida caadiyan hadda socotana barnaamij la yiraahdo waafiya dadka inta laga sameesto qofka lacag looga soo dirsanayo annagoo marka fariimihii dadkii loo diray iyo wuxuu ahaa haddana codkii soo dhicitaankii aankii la saaray haddana weli siyaasatay taana dhicitaankii sii socdo marka si gaar ah marka loo foojignaa qaybta kaashirada kale ninka odaga marka telefoon oo lacagtii aan siiyo telefoon dib uu canayo shakigaas aan ka shakiyay markaan ka shakiyay kadib lacagtii dambe oo ii soo dirsaday inta aanan siin aan waxaan fiiriyay lambarkiisa leen marka Hormuudka hadii xataa adiga aan leedahay 3,000 wixii kugu jira hal mar aad diri kartaa wax culays ma laha hadii uu lambarka akoon lahayn wixii kugu jira waa soo dirsan kartaa marka hadii uu dib u baxayo oo telefoon dirsanayo waxa ninka lacagta soo dirsanayo hubi lacagtii marka lambarka u soo diraya fiiriyay
waa lambar oo waafi loo isticmaalo lambarka waafiga ah markii aan fiiriyey akoon salaam bangi u furan waxaana iskala maamadii lambarkeeda markii aan fiiriyey maamadii aan waca maamadii markii aan wacay waxaan ku yidhi waa hormuud lacaga taleefonkaaga laga saarayo jiro ma jiraan markaas waxay dhahday hormuud biinkii EFC-ga waa kuu sheegay kii bangiga waa kuu sheegay kii waafina waa kuu sheegay maxaa kaloo laga rabaa marka waxaan dhahay cidda wax u sheegtay aniga maahi hadda waxa kulada hormuud waay qolada horena hormuud maahin sidaas markay taa waxay ugu tiri maya haddana qofa qadka ugu jiro oo dhahay qadka ka bixi inta systemka laga ballaarinayo lacagta lagu soo shubay ani ila hadal si qofkaas haddii loo soo waco ama fariimo u soo dhacan sidaas u arkin maamadii marka waxaan ku yidhi lacagtaas akoonkaaga laga saaray xaruntaas hormuud trebiyaana joognaa noogu imow ninkii odagaa ila taagnaana waxaa u yeeray qolada securitykan ku wareejiyey maamadii waa timiday qolada security iyo maamada iyo ninka odagaana waxaan ku wareejinay saldhigga hodol sidaas oo ku dhacay dhibane Faadumo Cusmaan Cabdi oo qof dhalinyarada baayaa gaarkaana qabta ayaa ka sheekaysay dhagarta lagu jabsaday hantideeda iyadoo maxkamadda ka codsatay in loo soo celiyo lacagta ka maqan maqribka salaada maqrib anoo lugta bidix dhaqaanahay ee salaada qarib ii tahay waxaa leedahay Faadumo Cusmaan gabadha cabashada dirsad soo aad mid tihid salaada qabiye maris waa tukana waa idin ku soo noqaada ma ku noqon ayagaaba salaada inta ku jirta idii soo wacay salaada markaa salaamo noqsaday waa ka qabtay waxay dhaheen walaalay waxaan ku haynaa lacag 2300 oo dollar aan ku haynaa marka lafta aad cabashada ku soo dirsato kuma saarna akoon ma kugu furnaa laf akoon aan kugu furno ama akoon kugu furan hadaa haysatid soo sheeg ani marka sax way cabashada waan dirsaday facebooka dadkan oo wax la siisiina ma arkino waxaa codsaday mooto in la ii gado walaalay Soomaaliyeed 15 maalmood ka horeysay bacdaan waxaa isdhaay lacagtii soo dhacday waa sida akiid ilaahay raalkiya waxaan dhahay waa sax waa dirsadaa dhahay 2300 ku heenaay dhaheen lambar akoon kugu furan sheego oo ii furnaay 8 ko lambar ahaa igu furnaay kiyaan u sheegay waxay dhaheen marka waxaan ka codsanaynaa lacagahan inay ku bataan laga yaabaa maadaama cabasho dirsatay anaga hormuud u shaqeynaa mishaarkeena waa $400 waxaan ka codsanaynaa walaalay lacagtan mishaarkeena way ka badan tahay inay naga dhuntane wax raali ka manina annagana shaqadeena noo aqoonsanin adina waxa ku weenin lambarka akoonkaaga aan lambarkan kala kaaga dhiga oo ku saaran kaas aan ku tixraacinaa sheeg lambarkaaga afarta hore leenoo sheeg inta kale iska heeso waxa iigu dambeysay salaada cishaan tugtay waxay dheen qadka ku jir qofna ha ka qabanin sidaas online ahaa danahaaga iska qabso salaada iska tukadaartid cishaan kugu soo tukadaartid waxaad sameeyso laakiin telefoonka hashidnaad faraha kala bax shimbiro iyo dhiida maqle wax dareen ha ka qaadanin sidaad ku soo hooshaada wado ani runtii ilaahay hada ka cabsado sunooyina badsaday maadaama 2300 soo gaarto aad u farxay ilaahay umada iga soo qaad alxamdulillah salaad cishaa galay laba rakac ku darsaday wili wax ka baxay ma laha waan ka bax gamaay qabatay shaahan dalbaday wax ka baxay ma laba saac iyo bar markay tahay oo sintiyaal la jir wiliba hormuuda isoo qabatay afar lambar iga soo wacay salaamu calaykum salaam Faadumo Cusmaan Cabdi marka laf oo 10 lambar caadiga doo ahaa la xitaa ma ka qabanayaan afar lambar iga soo wacay waxaan isdaa lacagtiyo dadka ku soo wacay waa dibida korkeeda leewaaye ka qabsadane runtii ilaahay marqaatiyo ka marka ka qabteedana Faadumo Cusmaan Cabdi tarabiyan emergency kuma waa lagu dhacay alxamdulillah waligeena biyaca uma maleeyeen dhunta ay qalashay gacanta way dhacday macnuur xamaasada ka qaaday tareenkii si xun oo noqday alxamdulillah hadda ka hadlaayo ilaa ma dalay bacdaan marka tarabiyan tagnay wax yar kadib gabadha waatana gabarna afwaay wiilashii way soo baxeen wiilkii oo qoorta ay ka wadaan inagu soo kala xooreen waa kana anaga idin wadeeno degmada hoodana idin geeneena wiil askari iyo aniga iyo asaga yani eedeysanaha yani wiilka oo wax qaatay ilaahay ka hanuuniyay kaas iyo aniga saldhiga wiil kalena walaalkay iyo wiil adeerkay waa baxnay saldhiga tagnay waa lii xiray subax hal saac bar aniga wadaadkay walaalkay aan ku dheelmaanay marka
intaas lacagta laga qaatay waxaan ka codsanaa maxkamadda sharafta leh lambarka lacagta oo hormuud ku xanimo horta xayiraada in laga wada qaado akoonka iyo hormuudeeda labadaba in xayiraada laga qaado waxaan kaloo ka codsanaa lafteeda hormuuda lacagta ku xaniman 1219 in laga qaado xayiraada aan ka baxsado waxaan kaloo ka codsanaa xayiraalaha 1220 in laga qaado ayadana ay si nabad sharaf leh ay siiso waxaan kaloo ka codsanaa walaalahay waxa iga maqan xaqooda 5763.25 in si sharaf leh igu siiyaan ay iga soo qaadaan idinka codsana maxamed cabdullaahi khaliif ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiisay in eedeysanayaashan lagu qaado tallaabo sharciga waafaqsan shirkadda ayadoo arrintaas marka ka duulaysa ayaa waxay samaysay macaamiisho dhan ay fariimo u dirtay fariimahaas waxay gelinay ahayd qofka markii loo diro marka hadduu fiiriyo lacag hadduusan ahayn ma fiirinayn uu ka soconay kadib dhici waa sii batay shirkadda mar kale arrintaas dib u fiirisay waxay go'aansatay in cod ay saaraan hadda qof kasta markuu qof u caayo codaa ka horeeyo awal waxay ahaan jirtay gabay iyo quraan iyo duco ay ahaan jirtay way ka saareen si dadka hantidooda loo badbaadiyo waxaa laga dhigay codkaas markii la soo koobo maxay tahay codkaas waxay gelin waaye dadka Soomaaliyeed waxaa loogu digaa in aysan jirin qof wakiil uga ah shirkadda hormuud oo ay ilaalsadaan lacagtooda qof hadduu soo waco yiraaho biinkaagi waxaaga noo sheegaysan isaga sheegin wadana gudoomiye ayadoo arrintaas socota ayaa taariikhdu markay ahayd 7 bishii 10aad 2023 eedeysanayaashan labada ah iyo midka marxuumka ah oo ku dhintay xabsiga dhexe xamar taariikhdu markay ahayd 11 bishii 11aad maalinkii jimcihii la soo dhaafay intaan maxkamadiisa la qaadin waa shabakad marka saddexdaas waafi qofka aqoonin waa application shirkadda hormuud ay iska leedahay oo ku sahlaya laftaada inaad ka maaranto si online ah u isticmaasho waxaa arkay qof dibadda jiro oo dibadda ku ogeyd inuu EFC ku soo diro waxaa arkay qof dibadda jiro inuu akoon ku soo diro waxa sahlaya application-ka waafi waa EFC-gaaga ayaad maamulo kartaa waxa maamulo kartaa akoonkaaga waxa sidoo kale ka maamulo kartaa inaad xawaalad wax ku dirto oo xawaalada la tagi jiray saasa lacagta loo diri jiray hadda application-ka dhexdiisa ka diray xawaalad waxa kale ugu muhiimsan oo ku anfacayo waafi waxa way mudan gudoomiye inta aadan qofka lacagta u dirin wuxuu ku xaqiijinaa magaciisa saddexan oo ku soo diray wuxuu ku leeyahay qofka u diro sid hebel waa adoo og oo xaqiiqsada diray waafi marka application-kaas waaye waafi marka soo dajiyeen waafigu muxuu u baahan yahay marka wuxuu u baahan yahay in simikaar lagu xiro simikaarka iyo waafi si la isugu xiro waxaa qasab ah in kood lagu soo diro oo la xaqiijiyo qofka simikaarkaas isticmaala in adiga tahay in kale koodkii maamadii u soo dhacay waxay dhaheen maama koodkii noo soo diray koodkii loo soo diray way geliyeen automatic waxay la wareegeen simikaarkii maamada markay la wareegeen maxaa marka qasab ah EFC-giya dhiman waxaa dhiman akoonkiya dhiman baasweeradooda in la helo way u seexseexdeen way sireen xabadkay dhulka ugu hayeen muddo ayay khadka ku hayeen way ka sirsirteen waxay ka heleen lambarkii baasweerkii EFC-ga ka heleen EFC-ga lacag yar oo ku jirtay arkeen waxay ogaadeen marka maamada inay jaban tahay oo kood kasta ay soo sheegi karto waxa la weydiiyay hadana akoonkii ay sheegtay sidaas gudaha loogu galay akoonkeeda ay ku arkeen lacag 10,000 inay ku jirto iyo dheeraad wili marka khadka ku hayaan waxay bilaabeen marka inay lacagti gadiyaan way qaybsadeen 1200 sida hadda eedeysanaha maxdarka joogo labaad uu sheegay lacagta ku soo aaday wana exbidu ku dheeli waxna kama uusan helin sidoo kale iPhone ku gatay iPhone 14 ku gatay eedeysanaha kale oo lagu qabtay muxuu ahaa iyo hormuud uu tagay qaybta xamarweyn uu tagay lacag uu la baxay Tarabiyan uu tagay Tarabiyan marka xarun kale ka weyn waa sidaas ayaa lagu qabtay eedeysanaha koobaad isagoo nisa ka tirsan oo shaqal qaran lahaa oo la rabay inuu ka shaqeeyo amniga magaalada ayuu wuxuu u soo jeestay inuu lacagaha la dhaco uu ka soo bixiyo akoonada muxuu ahaa shirkadda hormuud ka soo bixiyo mudan gudoomiye waxaan rabaa inaan maxkamadda la wadaago $1,220 oo ah lacagtii lagu qabtay eedeysanaha koowaad ee ka tirsan nisa waxaan rabaa in maxkamadda loo gudbiyo mudan gudoomiye inta aan maamada
la dhicin akoonkeedii waxaa ku jirtay $10,682. waxaa hadda seef ah oo akoonna ku xaxayran $1,220. waa tan hadda lahaayo maxkamadda u soo gudbinay. $2,532 akoonkeeday hadda ku jirtaa. 1,219 somnaday ku xayran tahay iyo 552.25. waxaa maqan markii la kala jaro inta la haayo iyo inta totalka waxaa soo baxaya inta maqan marka mudan gudoomiye waa $5,763.25 ayaa ku maqan eedeysanayaasha sida ku cad statementyada Salaama Bank xarraani maxkamaddu aragto. haddaba mudan gudoomiye shirkadda Hormuud waxay ka mid tahay shirkadaha telecommunication-ka lead gareeya ama hogaamiya waqti badanna Soomaaliya ka soo shaqeysay ilaa haddana ka shaqeyso muddo fog oo xitaa burburkii iyo dagaaladii ay ka shaqeynaysay Soomaaliyana ay ka hormarsiisay dhanka telecommunication-ka baahiyahaas ay ka haqabtirtay sidaa darteed ay dadka Soomaaliyeed u aamineen lacagahoodii ku darsadeen investment ku samaysteen service-ka ay bixiyaanna u isticmaalaan. shabakadan eedeysanayaasha ah midka marxuumka ah waxay ugu talagaleen in shirkadda iyagoo isticmaalaya magaceeda ay dadka ku dhacaan taasoo micnaheedu ay tahay in dadkii iyo shirkaddii ay kala dhambaalmaan ama ay kala shakiyaan. mar hadday sidaa dhacdana waxaa khasaaraysa shirkaddii sumcaddii iyo magacii karaamadii ku lahayd Soomaaliya iyo sidoo kale hantidii Soomaaliyeed ay ku jirtay ay hayeen. mudan gudoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh si arintaas loogu baaqsado waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay tilaabo cad ka qaado eedeysanayaasha sidoo kalena ay ku xukunto $5,763.25 oo maamadaas wili jarka lagu wada ay leedahay ay si ciyaar uga qaateen ay wanaagsan ku dheelay mid kamid ah maxkamaddu waa maasantahay. abukaate Isxaaq Cabdullaahi oo eedeysanayaasha u doodayay ayaa isna fadhigan ka sheegay in filimkan atoorihiisa uu geeriyooday inta hartana laga qaado lacagta lana sii daayo. waa turuufo macna yaa sameeyay marka turuufada ma waxa sameeyay Maxamed Cabdiweli mase waxa sameeyay Cabdiqaadir mase waxa sameeyay ninka la yiraahdo marxuumka ahay Axmed Maxamed ala si toos hadii aan uga jawaabno macna baarihina waa sheegay xafiiska xalaalinta waa sheegay qiraalada waa ku qoran yihiin waxa turuufada sameeyay inay ahaa marxuumka sababtoo ah wuxuu iska dhigay inuu macna marxuumkaas wax arintaas sameeyay arintaas marka turuufada ah oo qofkii sameeyay uu dhiman yahay oo u dhintay waxa soo haray dadkan hadda eeda loo haysto dadkan hadda loo haysto horta arinta la yiraahdo dhac ma jiro sababtoo ma lagu eedeysnaba 484 meeshan waxaa ku qoran dhac iyo turuufo laakiin dhac ma lagu eedeysnaba. mudan gudoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh eedeysanayaasha mid Maxamed Cabdiweli 600 ayuu ka soo bixiyay xarunta Hormuud ee Marwaas 620 waa ka soo bixiyay lacagtii gabi ahaan xafiiska xalaalinta ahaa macna lacagtii uu soo bixiyay 600 iyo 620 ahaydoo isku daran oo 1220 lahayd lacagtii waa wala hayaaba taas. lacagaha kale qolada baaristana ma caday karaan inuu marxuumka isticmaalay inay umad kale isticmaasho. waxaan isugu tagaynaa arinta la xiriirta gabadhan oo dhibanaha ah ee maxkamadda hor joogtay ay ka maqan tahay $5,763.25 ayadana gabadhan ma raadinayso ciqaab iyo turuufo iyo arrimahaas ma raadinayso xuquuqdaas ay ku heli leedahay raadinaysaa. waxaan rajaynayaa in xuquuqdaas ay heli doonto ehelada marxuumkana ay ka heli doonto ehelada eedeysanayaashana ay ka heli doonto filimkaana uu yahay gabi ahaantiisba mid dhamaaday maadaama uu ka dhintay Hormuudkii atooraha ka ahaa. waxaan rajaynayaa wax kale oo hadda ma taqaanaa culus inaysan jirin gabadhan inta ay ka hadashaba ay u badneyd codsigeediina uu ahaa inay hesho $5,763.25 oo markeedii horeba qaab samafala iyo ku heshay iyo maadaama qof shaqaysan kale aysan ahayn arintaasna gabi ahaan aan iska wada kaashano sidoo kalena ma taqaanaa
eheladii marxuumka iyo eheladaana ay bixiyaan ciqaabaha ku xusan 496 qofka ay qaba lahayn maadaama uu dhintay waxaa noo haray kaliya in xuquuqdaas madaniga la bixiyo waxaan rajaynayaa inay ehelada inta wadaagaan ay bixin doonaan eedaysanayaashana xorriyaddooda ay heli doonaan maxkamaddu waa mahadsanta gudoomiyaha maxkamadda darajada kuwaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo amray in si degdeg ah loo fasaxo lacagta ka xayiran maamo faadumo sidoo kalena ku wareejiyey lacagta ay la wareegtay xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida oo lagu qabtay eedaysanayaasha ayaa ugu dambeynna fadhigan soo xiray dhegaysiga eedda dhanka ka ah eedaysanayaal maxamed cabdiweli maxamed iyo cabdiqaadir cali xaaji maxamuud intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go-aan ka soo saarayso maxkamaddu waa noo xiran tahay